الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفور وناكسن odayaasha iyo culimada iyo khiyaarta nabaddoonada ragga iyo haweenka dhalinyarada aqoon-yahanada meesha isugu timid dhammaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. warku waa dhammaaday gebagabuu marayaa intaynaan kala tegin war-saxaafadeedka murtidiisii iyo macnihii shirka la isugu yimid waa innagii isu akhrinay, laakiin maxaan isugu hambalyaynaynaa baaqaas aan jeedinay ee bulshada rayd ka soo baxay. insha allah horta waa aqbal inuu guul ku dhammaanayana ilaahay baan ka baryaynaa calaamada lagu gartuu leeyahay. horta waa maalin soon oo la soomanaa baan shaqaynaynay oon alla baryaynay, ducadeenna allaha aqbalo. muraadka aan isugu nimid Soomaali inaan badbaadinaan maanta halkan u fadhinaa oo bulshadii rayidka gobolada iyo meel walba ka timid u fadhinaa oo odayaasheedii dhalinyaradeedii hooyooyinkoodii leh oo waayo araggoodii aqoon-yahankoodii leh. ducadeennii maalintaas soonka ahayd iyo dadaalka aan ku bixinay horta allaha aqbalo. Soomaali tii nabad ka heshay ku heshay ku waartana allaha ka dhigo. arrintii kale oo saansaanta shirkan guushiisa caddaynaysa waxaa ka mid ah wuxuu markay dhab yihiin shirar badan baa cimrigayga intaa leeg u jeedaan shir baan ku soo dhammaystay iyo howl. shirarka dhabnimadooda waxaan ku gartaa shirkan uu kaga duwan yahay. aan idinka qosliye markii si dhab ah howl in loo waajaal rabo tan oo kale oo rag ishaya la iska dhicinayo. qodobka koowaad labada qodob ugu muhiimsan soo wada waxa waaye qodobka koowaad horta ninkii noogu da'weynaa baa shirka inuu furo galabta loo dhiibi koowdhaha. qodobka ugu muhiimsan oo kaasba ka muhiimsan waa maxay? shirka markii loo duceynayo faataxadii iyo ducadii nin reer galmudug ah noo akhriyay. shirarkii howlaha galmudug ay ku duceeyaanna waa ogtihiin meeshay marayaan. marka shirki inuu dhab idinkii aan hor saasan ku gartay galabta. ta kale idinku bishaaraynaa idiin sheegayaa galabta dadka aan leenahay isu imaada oon baaqa u jeedinayno isku mid maaha. labada dhinacaan hadda baaqa u jeedinaynaba dad saaxiibadeenna waay oo qaraabadeenna oo ehelkeenna oon soo wada shaqaynay baa labada dhinacba jooga. annaga bulshadii rayidka ahaabana laakiin waxaa idiin sheegayaa oo warcad ah dadka madaxda ah markay xilka tagaan waxaad leedahay ninka sanadkan aan dooranay xilka u dhiibnay iyo ku-xigeenadiisii dadka ugu fiicnaa baan xulnay saad isu leedahay. iyagu hadday fiicnaan lahaayeen hataa ma fiicnaan karaan. sababta idiin sheegaya waxaan anaa ku soo dhex jiri jiray anaa layga warsadaa. kuwa la shaqeeya waxaa jira ku qaraabta oo la taliyaal u ah. hadda ka hor baan soo aragnay annaga madaxweyneyaal tan iyo carta ilaa hadda hawsha aan soo wadnay madaxweyne walba markuu damco inuu xadgudbo gacantiisaan qaban jirnay. prime minister kastoo xadgudba gacantiisaan qabanaynay. gudoomiye baarlamaan kasta iyo wasiir kasta inuu xadgudba raba gacantiisa aan qabanaynay. war allaha alla miyaan dhaynay sidaanaan u celcelinaynay weligeen. hataa qofka hadduu kuu qabsoomi lahaa yaa hoos jooga ma taqaanin. war madaxweyne war prime minister xaliime iyo ugaas muuse iyo sadiiq iyo cabdulaahi iyo professor xuseen iimaan iyo shaatax iyo axmed iyo cabdulaahi iyo horta dadka aad la shiraysad fiiri waa bulsho rayid hal bistooladna ma qabaan. waxaan maxaad warkooda ka dhegaysanaysa rag dhahaya hoostooda fadhiya. laakiin kuwii warkaas rumaysoo dhan
waxaan ka dhabaynay inay mar dambe ku soo noqonin xukunka yaan ka dhabaynay annagana waayo dadka codka bixinayaan ka xignaa ciidanka gorgor harmacad shabeel inta buris waxaan ay tirinayaan magacyada bahallada leh ciidamada ina annaga xukunnay moogyihiinba oo wiilasheenna yihiin oo abtiyaasheenna yihiin oo macallimiinteeda annahay oo ardaydan macallimiinta u leeyahay kuway macallimiintu ahaayeen baa ciidamada oo jeneraal oo korneel ah markay qaraaraata annaga warkeena yeelaan 65 sano la soo marin horaa loo arkay war meeshaas ciidan isku hadlaysaan idinkama jirtee annaga shaqada idin dhiibanay bulshada rayidka aad u shaqaysiina warkeena maqlaa idin leenahay dadka aan baaqa u dirayno warkeena maqlaan leena maxaa jira maalin baan meel shir ah ku kulannay kuwo oo dhalinyaro iyo kuwo kale odayaal oo xildhibaan ah iyo meel ku kulannay hadda hor annagoo magaca bulshada rayidka matalayna mid xildhibaana soo booday wuxuu yidhi bulshada rayidka ee gaalada la shaqaysata waxay og yihiin male gaalada ay ka lufluftaan wax saasoo kale ku hadlay maanta korkayga meel dhiig oo la sara ma lahayn ninkaa taan ku dhigay anoo idinka wakiila kabahan kala baxay waxaan ku idhi mushaharka aad qaadateen annagaa ku siina shaqadan annagaa ku siinay dowladda aad xildhibaanka ka tahayna annagaa keennay aad geel baad la jirta markaad dowladda soo dhisayni loo baad raacaysaan ku idhi waxaad tahayba ma leh mushaharkaaga qaado edab yeelo waayo bulshada rayidka ciyaar bay u haystaan waxa la isku haysta xeerada la isku haysta ujeedda oo dowladnimadaaba dadkii soo dhisi waa inta fadhiday inta ka maqanood wakiilka ka tihin waay warkeena maqlaan leena marka rajada aan qabno waxa waaye warka aad uma kululaynay galabta ay ku barateen ma ay maxaa jira duruus baan hore u soo siinay dadkan aad u jeedaan labada dhinac isku haya marba kuwii aan duruusta siinay ma kuwa kala jidboonay ninkii jidbooda dirsi aan siinaynaa annaga gacantiinaan qabanaynaa shacabkan Soomaaliyeed dalka iyaga iska leh dowladnimada iyaga iska leh inta maamulka ku jirto dhan marka la isku daro madaxweynaha laga bilaabo kulligood marka la isku daro Soomaaliya maxay ka yihiin shacabkan ma uu ka yahay annaga aan madalno 1% 2% ma dhama boqolkiiba 2 ma dhama boqolkiiba 1 ma dhama loo kooxda intaasoo milyan oo aad maqlaysaan Soomaalida waa shacabka annaga aan madalno canshuur bixiyaasha ah annagu waxaan ku dhiiranaa maba qarinaba ninkii isu keen waala oo dowladda ka shaqeeya hadda ka horna waa niri haddana waan dhahaynaa caawo warkeena aad u dhagaysta adeer haddaad shaqo fiican heli karto ood ilmahaaga biilan karto maqaayadaada iyo tabakaayadaada iyo meeshii aad joogtay baad joogi lahayd waxa kaa soo kaxeeyey ood shaqada dowlad u soo doonatay mushaharka iyo cashuurta annaga aan bixino gabdhahaas bixisaan baad ilmaha ku biilataan warkeena dhagaysta annagaad noo shaqaysaan maba qarinaynaba annaga inaad naga maaranta canaanteena ka maaranta martaa haddaad rabto shaqada isaga tag cashuurteena iyo mushaharkeena noo dhaaf aad soo doonatay ood Ameerika uga lugaysay Yurub uga soo lugaysay ood baadi uga timid ood gobol uga timid noo daa mushaharkeena cashuurteena ninka fiican baan siisanaynaa oo noo dhaga nugul oo shacabka Soomaaliyeed waxay rabaan maqlayaan siinaynaa iska tag shaqada haddii kale xasaan baan ku sameynaa ilmaha ku korsameesh waayo dowladda aad maanta ku jirto anaa muddo dheer ku soo jiray ka soo shaqayn jiray oo kuwa mushaharkiina iyo canshuurtiina qaata ka mid ahaan jiray laakiin maxaan aaminsanaa aniga rag la mid ah in canshuurtiina ilmaha ku biilanaan aaminsanaan jirnay waana idin shaqayn jirnay kuwa waxaa yimidba aad adiga biilkooda bixiso inay ku dhageystaan ba aan rabin haddana
وراني قبل gurigayga ka shaqeysa iyo shufeerka baawarka ii wada iyo ninka guriga ii dhisay shaqada aan u dirsaday sidoo aan u rabo haduu qaban waayo iridu ka baxaa shacabkaan adu shaqeysiin shacabkaan dad lagu ciyaari karo inaan midii sheegaa waa dadkii hogaami kooxeedyada edeb u yeelay oo doomaha saaray oo inay cararaan ku khasbay waa dadkii carta dawladda soo dhisay markaad waxba dhisi weyseen siyaasiyiintiina mid ugu dambayso oo dadka Soomaaliyeed la dhayalsan karin waxa weeye amxaarada iyo oroomada iyo tigreega isu tagay oo 130 milyan sheegta ayaa haday wax naga tari karaan 1 kiiloomitir oo deged ka dhistaan heli lahaa adeer dadkii diiday baan dhalay kuwii diiday 130 milyan 1 kiiloomitir bada inay qaataan badda Afrika ugu dheer oo 3340 kiiloomitir lagu sheego ee Afrika ugu dheer xeebteena odayaashii diiday 130 milyan oo la sheego inay 1 kiiloomitir ka qaataan odayaashaas dhalay gabdhaha halka fadhiyo wiilasha darjeedaan maxay idin helay soonkii miya waxaan rabnaa horta qiir isgeliya walow ducadii reer mudug ay nagu filneed iyo faataxadii laakiin dadka aan la hadlayno sacab guryahooda ay ka maqlaan haddaad tumi weysaan ani idinka caawa isu joognaa maya iguma filna lagu celiyo hal sacab oo labada jaanib inay dhigaha furaan oo dhageystaan oo dib u heshiisiin hal sacab oo dib u heshiisiin oo labada dhinacba maqlaan warkeena ay ku qancaan halkaas sacab lagu soo khatimo waa salaamantiin professorka aad u baasan yahay aad iyo aad professor Xuseen Iimaan waa aad ma santahay saaxiib yaal kulligu waa noo soo xiran yahay marka واي هذا الهلمان كما جري أخياري كلن كان نمان تردن أنا وسومنا نلك أفدني ومدة الصومالية قضية ده نلك أفدني أجر الله يكسيه صون كان الله أقبله أنت كذب لبعض النعان وباغني بقى وصاحب بدن وأنا كعلنيا وركين مديديان من ديدي كران وأيسو إيمانيان سيسو مال ربتين يليان مرك الدعاء إن الله أقبله وأنا أيسو إيمانينا مرتديننا شركة جرائد وأنا آخرنا يكون قرنتها وأنا غيبيننا فيسبوك يدنا وهدينا يجنا ودرينا وعكسوا بعنا وإذا لسه سعسيننا شركة وأنا حرينا السلام عليكم.